bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Tech News oo had jeer idin soo gudbiya wararkii u dambeeyay caalamka dhacay iyo casharada tiknoolajiyada. Fiidiyogan maanta waxa uu ka hadlayaa cashar ku saabsan tiknoolajiyada qaybta kombiyuutarka. Waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarkaaga magaca iyo passwordka aad uga bedeli lahayd. Goordhow ayaan casharkeena guda galaynaa inta ka horeysase isu soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada casharkeena markii aan rabno kombiyuutarkeena magaca inaan ka bedelno kombiyuutarkeena waxa uu leeyahay in meel loo yaqaan control panel ama af Carabi lagu yiraahdo looxatu taxakum waa meesha laga maamulo kombiyuutarka sida mobilka looga maamulo settingiga haddii aan guda galno waxaan maraynaa talaabooyinkaasi la soco talaabada koowaad ama stepka koowaad ee aan marayno waxa weeye inaan soo galno control panelka kombiyuutarka double click ama laba jeer guji halka marka timaado shaashada caynkan oo kala talaabada labaad ee aan qaaday waxaan ku dhufanayaa user account talaabada saddexaad ama stepka saddexaad ee aan qaaday waxa way meesha ay ku qoran tahay change account type ayaan imaanayaa talaabada afraad ee aan qaaday waxa way magaca kombiyuutarkayga ayaan ku dhufanayaa dushiisa marka aan click siiyo waxa soo baxaya magaca iyo ama shaashad noocan oo kala halkan waxa ku qoran change the account name change the password isku meel baa laga bedelaa passwordka iyo magaca kombiyuutarkaba waxaan ku dhufanayaa marka change the name magaca ka bedelida kombiyuutarka ayaan ku horeynaa change the account name ayaad ku dhufanaysaa markii uu halkan ku keeno halkan waxa ku qoran new account name magaca cusub ee la baxayso kombiyuutarkaaga ayaad gelinaysaa hadeer waxa ku qoran saad u jeedaan Faarax ayaa ku qoran waxaan ula baxayaa tusaalahaan kulmiye ayaan ula baxay hadeertan talaabada xigtay aan qaadayo ama talaabada shanaad waxa weeye change name ayaan oranayaa magacii sidaas ayuu ku bedelmay hadeertan kombiyuutarkeena magaca waan ka bedelnay waa ka kombiyuutarkeena kulmiye ayaa ku qoran qaybta xigtay aan ku baranayna casharkeena waxa weeye sida kombiyuutarka sidaas la mid looga bedelo passwordka haddii aan rabno inaan passwordka kombiyuutarkeena ka bedelno waxaan imanaynaa isla qaybtii hadeertan control panelka ayaa laba jeer taabanaysaa talaabada koobaad talaabada xigta waxaad ku dhufanaysaa user account talaabada ku sii xigta ama talaabada saddexaad waxa leedahay change account type talaabada afraad waxaad ku dhufanaysaa kombiyuutarkaaga magaciisa marka dul timaado waxa imanaysaa change the password halkan shaashada caynkan kala ayuu ku keenayaa marka waxa ku qoran halkan current password new password iyo confirm new password halkan hintigaasi muhiim ah inaad wax geliso current password waxa weeye passwordkii hore in aad geliso halka markii aad passwordkii hore geliso halkan ayaad imanaysaa waxaad gelinaysaa password cusub ayaad halkan ku celinaysaa markii aad timaado ayaad waxa ku dhufanaysaa change account name halka ayaad ku sii dhufanaysaa sidaas ayuu ku bedelmay passwordka kombiyuutarkaaga daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa fiidiyoogii aan ku baranaynay sida kombiyuutarka magaca iyo passwordka looga bedelo haddaba daawada haddii aad casharkan ka heshay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelka siina share garayso fiidiyogan si ay dad badan uga faa'iideystaan waana ku mahadsantahay daawashadaada